السلام عليكم لما ولا السلام يا Somaliland iyo inta ay gaari kartay khusayso hadalkaygu marka hore magacaygu waa Mudawaa waxaan ahay muwaadilad reer Somaliland waxaan ahay muwaadilad gurigeedii daqiiqad ciidan u tagaya waxaan ahay muwaadilad caruurteeda yar saqda dhexe loo daadanayo laga nixinayo waxaan ahay muwaadilad wax dhigo ay geysatay jirin qudbadii madaxweynaheeda qaranka falanqaysay wax la igu haysan kara ma garanayo taadi baa la igu haystaa caruurteedii xalay lama seexanin anigu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waan jeclahay laakiin ma garanayo waxay yihiin gurigeyga daqiiqad soo daadanaya dalkii ma cid kala timid dalkii Somaliland aynu naqaanay weydinkan yiri dablay aan haybteeda la aqoon baa dadkii leeynaysa taanu waaban baqayaa inay dilo sababtaasaan uga maqan aanu xarig kama baqanayo xarig hadii la xiro muwaadilad baan hay saldhigyadana inamadeedii baa joogo leeyahay geeliya laakiin dablayda aan haybteeda la aqoon ee dadka laysa ayaan ka baqayaa dadkaas inay dilaan madaxweynihii markaan dadkii wareystay wax lagu madaxweynaha dhibana ka ah madaxweynaha qaranka madaxweynaha qudbadiisa baan falanqeeyay wax kale aan ilmo jirto muwaadilad baan ahay xaq baan u leeyahay dastuurka isiinayaan qudbadiisa falanqeeyo inaan wixii tala ah halka ka soo jeediyo maxaan ku iraahdaayay wax ay aflagaadahna iguma balahaaniga madaxweynaha qaranku daa iguma yeelan karo madaxweyne qaran weeyaan madaxweyne waxaan ku leeyahay hadii aad la ogtahayna anigu madaxweyne dhan oo ila dagaalamay dalkii joogi karmay waan iskaga tagayaa oo hadan ka dhaqaaqaya oo aan madaxweyne qaran dagaalkiisa ma qaadi karo hadii aanad la ogeyna madaxweyne iga qabsay inamada aad magacawday inantaas waa muwaadilad gurigeedii xatagtay amaan baraaran siiya nimanka adiga aad magacawday ee magacaaga dartii igu dilaya ee la madaxweynaha soo hadal qaaday madaxweyne hadii aanad la ogeyn iga qabso hadii aad la ogtahayna madaxweyne adan kaaga baxaya dalka waan kaaga baxaya inta dalka haysatidna ma imanayo hadii ay dhabka tahay oo aanad ogeyn madaxweyne inamada xilalka aad u dhiibtay eriyanaya iga qabso muwaadilad xarab aan ahay hadii dalkii dimuqraadiyadii laga laalaabayna oo leeyahay dimuqraadiyad ma jirto ee dictatorship baa jira oo ciidamadaba hadli kartay carjuuq iyo daba soconaysa taasina waa halkeeda anigu hadii ay tahay madaxweyne dalka waan kaaga baxay inta haysatidna ma imanayo dalka inta haysatid sabab garan meelaha kale intagee magangeliye siyaasadeed baan umada Ilaahay weydiisanaya hadii aanay adiga ahayna nimanka ku hor yaacay guul wadayaasha ah iga qabso shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay hadaan wax khaldan iri wada cishan kartaan inantiini baanahay laakiin anigu hooyo miskiinad